so far waxaan idin tusiyey hal nooc oo la yiraahdo cunada hindida ahayd oo la yiraahdo tarka dal dalkii hore waan usoo suubiyey tarkiina waa suubiyey waa isku daray aad iyo aad ayuu macaan hadda waxa aan suubinayaa nooc ka mid ah fried onion oo hindida ay cunaan biryaniga ay ku darsadaan tarka dalka lagu dari karo khudradda lagu daran karo raashin ala raashin ka rabta aad ku darsan kartid hadda waxa aad saad u jeedaan waxaan haystaa onion on yaryareeyay onionka haddaan rabo without corn starch waa isticmaali karaya laakiin corn starch nooca aan ku darayo it's really good aad bay maaragtay crispness ayay siinaysaa corn starch waa ujeedaan waxaan suubinayaa basashii waxaan ku shubtay halkaas weel waxa aan ku darayaa hal qaado oo corn starch ama nus qaado ka badan noqdo hal qaado zip kula walaaqaya si fiican baa kula walaaqaya waa ujeedaan ilaa u gaarto si fiican baa u walaaqaya waa ujeedaan waxay ku soo baxaysaa sida tan kadibna waxa aan yeelayaa onionkii waxa aan ku shubayaa bas birtaawo ay saliid iigu jirto waa ujeedaan si aayaroo tartiibe markii la walaaqayaa habboon sababtaan u walaaqayo onionka waxa weeye wax kale ma aha waxa dhacaya haddaan onionka aan daayo corn starchkana aan ku shubay inay isku dhafto marka waa kala bixinayaa waa ujeedaan si fiican baan u kala saarayaa basasha saa ujeedaan hadda xoogaa marka ay noqoto xoogaa yar brownish oo jaallo camal xaggiisa ay noqoto waa ka qaadaynaa marka aan ka qaadno bannaanka aan dhigno jaa basashii way sii madoowaanaysaa laakiin haddii aad suubisid basashii ayadoo madoobe aad ka qaadid then markaad bannaanka dhigtid ilaa iyo 20 ilaa iyo 30% kale ayay basashii haddana sii madoowaanaysaa marka waxa aan suubinayaa hadda weli wax yar baa u haray lazana waxa u haray 30 seconds kadib waa ka qaadayaa next weekna waxaan soo qaadanaynaa barnaamijyo kale oo maaragtay aad iyo aad u macaan waxaan soo qaadanaynaa 3 nooc oo biryaniga sida loo suubiyo waan ka qaadayaa basashii waxa habboon mar alla markaa basasha aad suubinaysid markay xoogaa yar geesaha ka soo mudoobaato oo xoogaa dryna ay noqoto dhacaanka oo ka baxay ka qaada marka aad bannaanka dhigtid first 10 to 15 minutes way sii madoowaanaysaa marka waan ujeedaa basashii waa very crispy biryaniga marka hilibka aad dhigtid oo aad bariiska aad dhigtid kadib ayaad ku daraysaa markaas haddana waxaad dhigaysaa another layer kaloo hilibe kadib another layer kaloo bariise kadib another layer kaloo maaragtay hadduu ilaahay ku roon yahay oo onionkii ah hodhowta wixii oo dhan carfiyaashii whatever wax markay isku koraan waxa ay soo baxayaan wax aad iyo aad u macaan laastiga haddaad rabtid shax ama garnish oo caraf ee loogu talagalay whatever oo qurxin ah ayaad dusha kaga dari kartaa haddaad basashaad ka dhigan kartaa haddaad rabtidna waxa aad ka dhigan kartaa carrots oo aad grate-garaysood yaryaraysay iyo zabiib yar ayaad maaragtay dusha kaga daraysaa haddaa la yiraahdo meesha la yiraahdo biryaniga hoosna waad ka dhigi kartaa haddaad rabtid markaad isku walaaqdid waxaa soo baxaya onionkii biryanigii hilbihiisii iyo caraftiisii iyo waxyaalihii kaloo quruxdaha carrotska waxyaalaha kuu sheegayo qurxoona aad ku dartay aad u mahadsantihiin caawa waxaa mahad mudan oon rabaa aad iyo aad inaan ugu mahad celiyo cabdullaahi yare oo kamarada ii hayay he's a good cameraman he's learning right now wuxuu baranayaa qaabka kamarada cabdullaahi thank you caawa kamarada aad duubtay aad iyo aad u mahadsan tahay inta aan barnaamij lamida ku kulmi doono anigu waa sheekh cabdicasiis dhicis waxaan dilayaa sidaa iyo nabadgelyo